ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أما بعد، أولا إله ما الله جل جلاله ما ظن لسوكو بكرين إلهنا ومهد علمنا سبحانه وتعالى. بعد حمد الله تبارك وتعالى وعن ربنا أمهد علي الدكتور أحمد جزاه الله خيرا على حرصه وعلى محبته للخير حبه للخير oo runtii sabab u noqday inaan caawa kulanno ay noqoto muxaadaradii ugu horeysay aan ka jeediyo Nairobi, Kenya intaan imaaday. marka alxamdulilah ku faraxsanahay. allah idin xifdiyo, allah idin barakeeyo. ilaahay waxaan weydiisanaa jala jalaaluhu inuu tawfiiqana waafajiyo. idinkana waxaa waajib idinku ah inaad noqotiin aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah. ikhwaani, mowduucu wuxuu noqonaa in sha allahu tacaala alqur'aan kalaamu allahi tabaaraka wa tacaala. ilaahay qur-aankiisa hadalkii rabbi alcaalamiin jala jalaaluhu noogu deeqay subxaanahu wa tacaala. qof kasto iskama haysto, qof kasta ma baran karo qur-aanka. ilaahay dad khaas buu ugu talagalay subxaanahu wa tacaala. qur-aanka markaan akhrino, aan dhegaysano, macnihii aan runtii aan ku tadabburno, waxaan dareemaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa qof kasta uusan siinayn, keliya ugu talagalay ashkhaas mucayaniin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala si khaas u tilmaamay. ilaahay markuu noo tilmaamo kuwaas marka muxuu sheegay rabbulcaalamiin? waa kuwan u doornay inaan siino qur-aanka. qaala allahu tabaaraka wa tacaala: wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuura. qur-aanka magacyadiis way badan yihiin. ilaahay magacyo badan uu ku tilmaamay. min asmaa'ihi waxaa ka mid a inuu nuur u yahay. wallaahi nuur. qof qur-aanka akhriyey oo qur-aanka qabsaday oo adduunkan nuur usan ku helin ma jiro. xaqa tamasukan ka hadlaa, dhaqankiisan ka hadlaa. wallaahi aladii laa ilaaha illaa hu. qur-aanka dhab haddii loo qabsado, ilaahay dartii loo barto, la akhristo, xifaaduu kuu yahay. nuuru xayaatika weeye. nolol macaana dareemaysaa. wixii ku dhibaa ilaahay baa kaa qabanaya subxaanahu wa tacaala. wax kastoo culays kuga ah ilaaha kuu fududeynaya jala jalaaluh. walaakin jacalnaahu nuuraa mubaarak. wahada kitaabun anzalnaahu mubaarak. waa ilaahay barakuu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala. haddaad qabsatidna maxaad noqonaysaa qof barakaysan, noloshiisa barakaysan, cilmihiisa caruurtiisa barakaysan yihiin, oo ganacsi hadduu leeyahay ganacsigiisa uu barakaysan yahay, dhaqaalihiisa ay barakaysan yihiin. wahaluma wajara.
waxaad ka dareemi kartaa marka dadka qur-aanka xaqan qabsaday naxsabuhu kadalika wallahu xasiibuhu calaa ra'sihim intaan arkay sheekheena sheekh cabdirasiid sheekh cali suufi waa qur-aan socdo aanaa alleyli wa atraafa annahaari ku mashquulsan oo habeen imaalin akhriyo qofkii la socdo ama la noolaa dareemi karo raxmadda iyo wanaagga iyo khayrka uu ku dhex nool yahay walaakin jacalnaahu nuuraa nuuru alxayaa nuuru ddunyaa marka nuurkaasoo saas u weyn ilaahay tabaaraka wa tacaala muxuu noo sheegay nahdii bihi man nashaau min cibaadina waxaan ku hanuuninaynaa aan ku hadiyeyneynaa intaan doonno addoomankeena ka mid ah muslimiinta dhan qur-aanka ma wada xifdisana muslimiinta dhan qur-aanka ma akhriyi karaan bal xufaada qur-aanka xifdisan ma wada akhriyi karaan kulligooda waan xifdiyey kelima aha inaad la noolaato qur-aanka xayaatadaada ka mid noqdo oo marka lagu weydiiyo xaaladaada noloshaada ilmahaada dad caruur leedahay shaqadaada waa in lagu weydiiyaa qur-aankaada ka waran kayfa alqur'aanu macak inteed marowsaa maanta wardigii ma akhrisay safarkaa aada ku dhex maraysid qur-aanka inteed taagan tahay hadda waqti alxaali waxaa laga soo qaaday maala adoo nairobi ka baxay intaad bambaaso u socoto tuulooyin badanaa jiro lasii maraayo soo maa ama deegaamo lasii maraayaa jiro saacad markaa socto qofka kusoo wici wuxuu ku leeyahay inteed joogtaa waxaa leedahay meel hiblaayo oo shidaal lagu shuban jiray oo dee kafeey laga cabaay kada kada saacad kadib haddana waxaa leedahay meel kale wahluma wajara waaga hadduu beri lagu weydi intay joogtaa alxamdulilah waan tagay intay joogtaa bambaasa ama meesha rabta mandheera meesha rabto marka saan u tagto marka waxaan ka soo qaadaynaa marka nairobi safarka bilaabanayo waxaan ka soo qaadaynaa inaad safarka aad ka bilowday suurat lbaqara waad socotaa marka haddaa hadda suurat lbaqara bilowdid saacad kadib haddii lagu weydiiyo waxaad ka soo hadlaysaa carabka hadduu fudud yahay suurat ali cimraan kullu طacaam a lagaa wareysana markaad saacad joogto 2 saac kadib waxaa weeyaan suurat almaa-ida aad ku dhex jiraysaa wahluma wajara marka maanta sabtiya maalan dad badana hadda gruub ku jiro khayr allah siiyo runtii isku bahaystay inay qur-aanka akhriyaan maalintii 5 juz waa saacad iyo bar min waqtik aada leedahay 24 saac waxaad siinaysaa kalaamu rabbi tabaaraka wa tacaala waxaad siinaysaa nuurkii aada qaadan lahayd waayo mobileka aad ku shaqaysanaysid waayo habeenkii markaad seexanaysid jejaraad gelinaysa soo maha bateriyadood buuxda waayo markuu beriyo in waxaad jecesay inaad soo kacda soo kuu buuxo shuxna iimaaniya jejarkii nuurkii ahaa jejarkii nolosha aad ku hudhaa wejiga aad ku nuursan lahayd jejarkii ilaahay kugu cusboonaysin lahaa noloshaadii huwa kalaamu rabbi 5 juz aad akhrisanaysaa dadka 5 juz akhrina ka hadlaa safarkooda yowm sabti suurat lbaqara ay ka bilaabayaan qoraxda markay dhacayso ama sabda dhexe intaan waxaa weeyaan thuluth alakhiir min alleyl aan la gaarin waxay marayaan nihaayat suurat النساء لا يحب الله الجهر وهلم وجرا يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء الأربعاء الخميس يوم الخميس وقف انت كتغي بمباسة او كلو يوم الخميس سورة الناس اي قارايا مركاسا جروب بل حتى حدانا دمين حتى دات جروب كجوا حشونا يعني خميس دي لقارو ظهردي مسدية صداعي لابا بقول هالجروب انا حسوسانا هاي لو بقول السمتي اكو جر لو بقول خنتن تقريبا اكو جرت لو بقول خنتن مسدا صداعي مركا المسجد محوك قرنها وحالك صغرا تمت الختمة ولله الحمد نيك مقعيسة
تاريخ ذا وقت قدمي يوم الخميس يعني دتك دن خميس تو يسوغايان او دتك غروبده كجيرو د قران كاسلا اخرينو خميس ما لا غاري دت قارا مركع يوم الاربعاء والبهار مشغول قلاي وايو وكم مشغولا وحاود من مركع طبعا الشن التوين جزء قدما اما وحاود من توين جزء دت قارا اركا مركع وحي ليه نيو ما انت مساعد كمال ما اذكر ومشغول سنه محاجره وردقي ما ضماني طبعا جزء يدمان من وحوليه عاو مساحنا محاجر نيو يامانا كان مشغول بريتن وحالي ربا تمت الختمه ان عنده وانا دوبر ميل ما هذا الا ظهرك لا غارو انا من غري كسو بخي معي ما السبب تمت الختمه لقي سوى انا دميان ربا خميس ما لقاري ولا نفسها مركه ولا نفط شيطان ما اقول خيرك يوم الجمعه محتمينه سوره الكهف ايوه دتك دائما يوميا سوره البقره جروب كاس وجروب كاس جروب كلا كدرن عجيب نيروبي الأوسمي لقى سميه شن جزء الآخرنا مالين كستو وحزيادة يوميا محل آخر سورة البقرة مثلا نقولنا مركا تدور جزء بر جروب الأوسمي سورة البقرة جروب خاص على الأوسمي ويا خميس لسوق ما يتاسي يوميا تمت الختمة يا أيها المريمانتا يا جوهري اللي هي تمت الختمة مالك سلوك صاقرة غير نيروبي وحي كل السميين بارك الله فيهم نيجا سميولي حتى ما أركن واسم قلنون لكن ما شاء الله سفي عم بيهوش وضان وحكى لنا سميي جروب خاصة لغم العابه سورة الكهف خير كسير لسوء عاونا فيريا جمعيه ما لقى مركا هذا مشغول سنتي حتى نسيت كاسور دعاية محاجرة تمت الكهف سورة الكهف النبي صار نظام في عمان فيسبوك يدا واتساب يدا إذا وحكى إنه مشغولين دنا وحي كم مشغولين إنه يسود صدان قرآنك وسلوسيان أي كتر تمام هبلا يهر مري دمر جلو جروب خاص دمر موجرة هبلا يهر مرتي لكن جروب قيمة بدنا وين وحوين سمي وغير نيروبي انت فدس وحاله يا بدك بدنا كجرا marka aniga reer Nairobi ah waa ku jira kaas alxamdulillah maadaama Nairobi aan joogo dadkayga ay joogaan reer Nairobi ah ma garateen marka ikhwaani maxaa dareemay marka hada caawa bilowdid usbuuc kadib hadina iswarayso xaaka wuxuu iska bedelo dad badan suurat al-baqara ila bilaabay culamaa kamid ah قارئ إلى صاحب بدنا تلفون كي مشغول كيساس كبدن قار كم إذا علماء لينا عن كهي بيستو عن أجوابا مركان جانس وهلا مركا متقف علماء كم إذا مفسر كبير محدث لغوي أيام معلم ما كم إذا جروب سنة كهر تقريبا مركان نيروبي صوب وقضي أيوه حو مقلي سورة البقرة مالين كستا هلا آخريو ناعس ماشي كمقلي شيخ سورة البقرة وقبصدي نور بلوين كذبا يسرقني ويسلامي أسؤال وفرحسن وعلي جزاك الله خيرا وحوين بقي قوات محنكو قبت الشيخ ومحن سمي مالين تان كان مقلي سورة البقرة عن بلابي أنو دمين قولي كما صبحوا مصائب كإيهيستي إلهي بالله شيء كلا سبحانه وتعالى نولا شيء دو إسبد شيء نولا المعام بانقالي وساوستي إغتكتي بابكي بإلهي إيفور سبحانه وتعالى أنوار لكن محب الأول شيء جزئين وآخرية إنه آخرية سورة البقرة يوميا وتدو جزء بر وفو إلهي أفضل ذي وأفضل ذانيسا لكن هذه إلهي وسنكون فضل ذيني فضلت هلي ميسد سيدو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحكود عيشين دري دعيدس وحكمدها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ذكر إلهي وحقوين القرآن مركا كورا يوميا وحي إلهي أدون كان للناس كافة إلهي أقول لك هذا أخي الناس كور
maamulkii adduunkan waxa dadoo nool allah jalla jalaaluhu wuxuu u soo dejiyey dastuur ay ku dhaqmaan noloshooda ay ku jirto oo ilaahay wax badan uu nooga sheekeeyey subxaanahu wa tacaala wax badan ilaahay uu na faray jalla jalaaluhu oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ka sheekeeyey qisooyin fara badan naxnu naqusu calayka axsana alqasas suurat yuusuf qisa cajiiba oo waxa weeyaan ku saabsan dee khaasatan dhalinyarada aada u taabanayso oo yacni dastuuru xayaatik noloshaada dhan ummaddan wixii anfici lahaa gebi ahaanba waxaad keensatay gurigaaga adaa akrinaayo gabadhu hadday qur-aan garanayso way akrinaysaa cunugaa dhashayaa akrinaayo qofku marka maalin kasta qur-aanka akrinaayo usbuuciyan qur-aanka dhamaynayo soo wax weyn ma walaaliya usbuuciyan nuurkaas dhuuqaayo wax weyn soo maa idan salafka waxay ahaan jireen qur-aanka markay akhriyaan oo khataamka la gaaro ogaada mar kastood qur-aanka dhamayso waxaa leedahay dacwa mustajaaba duco ilaahay uu kaa aqbalayo waxaad weydiisto uu ku siinayo ayaa leedahay salafku marka waxay samayn jireen qur-aanka dhamayskiisa ma soo dhawaaday waxay u yeeli jireen ilmahooda xaasaskooda gurigaa la isugu imaanaa duca jamaaciyaa la sameynaa qofka qur-aanka dhameeyaa ducaynayo wuxuu u ducaynaya ilmihiisa ayakan waxay leeyihiin aamiin marka nolosheen waxay hagaag leedahay marka waxa weeyaan mashquul iyo waswaas iyo khilaaf mukhaalafaat zawjiya iyo ilmaha waxa weeyaan inay iskhilaafaan inay isdilaan inay isnacbadaan waxaa dhibka weyn waxa weeyaan dhibaatada haysto waxaan kaga bixi karnaa inaan akhrino ilaahay kitaabkiisa wallaahi wabillaahi watallah haddaad akhriso qur-aanka usbuuciyan hal mar wax allaala waxaad u baahato waad helaysaa wax kastood u baahan tahay wallaahi waad helaysaa culays kastoo ku saaran wallaahi wuu kaa degi laakiin niyeyso haddaad xanuunsan tahay biniyati shifaa ku akri haddaad wax dhaqaalo rabto ilaahay inuu dhaqaalo ku siiyo niyeyso qur-aanka kariim weeye qof kariim oo deeqsiya markaa u tagtid maxaad ka rajaynaysaa inuu wax ku siiso maa qur-aanka wuu ku siinaa lacag wuu ku siinaa qur-aanka ogow soo lacag ma rabtid qur-aankaad ka helaysaa waayo akramu akramiin jala jalaaluhu hadalkiisa waaye magaciisuu qeyb ka siiye rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aankana kariim uu ku tilmaamay allah jala jalaaluhu adigana haddaad qabsatid kariimaad noqonaysaa waayo saaxiibkiisu ku daydaa oo haddaad qur-aanka qabsato akhriso biidn illaahi tabaaraka wa tacaala takunu kariima deeqsiyaad noqonaysaa ayib wax allah waxa u baan haddii qur-aanka aan ka helnay marka shaydaan cadow waaye khayr nooma ogola mar weliba wuxuu nagala dagaalamaa inaanan akhrinin qur-aanka cadow waad dareemi kartaa adoo horti ku hayno iska baashaalayo nabadaada qabtid carbilow qur-aanka kala bixi kitaabka waa hordaysaa dad qaaraaba hadda caqligaas sameeyo waxay dhahaan de wardigoodu way akhrisanayaan hurdaday weynayaan kitaabkay soo qabsanayaan bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wuu hamaansana wax yar kadib shaydaanka ma ogol khayrkas inuu socdo hurdo ku siinaa wuxuu leeyahay seexo saasaa ku roonay naga dhaaf qur-aanka xaqiiqa wax la ogaado wey hurdo la-aan ma noqotay weyse qaado lagu rakac tuko juz laba intaad ka gaarsiis macnaha kasii gaarsii tuko wasatara alcajab hurdaad ka helaysaa nolol macaan deganaasho qalbigaaga qaboobayo ogow qalbiga waxa bini aadamka maamula waa qalbiga على سبيل المثال wax ku fahmi karaan kun rumor ma lahayn isjiid baawta waaweyn oo isjiidayso oo shamiinta dhowr tan saaran gaarigaasi haddii matoorka yariiska uu ka halaabo gaariga ma soconayo tankaasi iyo shamiintooyinkaas intaas tan ah iyo culeyskiisa waxba ma taro
matoorka ka hadlaysan ma shaqaynayo. qofka bani aadamka ah waa jismi, lugo, gacmo, madax, feerihiisa, wax dhan waxa weeyaan hal shay xukumo oo alaa wahuwa alqalb. qur-aanka marka wuxuu yahay quut alquluub. alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub. wax yar murugo ma dareentay? hal juz ka tur, ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dejiyo, qalbigu kuu qaboojiyo. haddaad caraysan tahay akhri qur-aanka, ilaahay wuu kuu bedelaa. waayo raashin nooca ugu macaan haddaad caawa cunto qalbigaadu uu xun yahay ama murugaysan tahay, waxa weye waxba kuuma taraa raashinkaas. wax macaan haddaa cunto mise waxaad jecesha haddaa cunto jismigaa ku naaxaaya keliya. laakiin alqur'aan ilaahay dikrigiisa subxaanahu wa tacaala quut lquluub. laakiin markaad murugaysan tahay wejigaada laga dareemaa madow iyo murugo iyo wax baa ku saaran. qofkan garina hataa wuxuu leeyahay ninkan waxbaa si ka ah. ha wallahi runtaa waa murugaysana uu ku leeyahay. murugta marka lugaha ma qabato, gacmaha ma qabato, feeraha ma gasho, alqalb. kan hadduu hagaagsan yahay umuura kullaha ilaahay wuu hagaajinaa subxaanahu wa tacaala. laakiin kan hadduu kaa xun yahay wax ku hagaagay ma lahan. bal qur-aankii nolosheena waay, qur-aankii nuurkeena waay fi dunya waalaakhira. qur-aanka waa caafimaadkeena oon kaga maarmayno wallaahi in dhakhaatiirta ay lacag naga qaataan ama dawooyina noo soo qoro kaga maarmayno. xaqiiqatan dadka say u badan yihiin wasaawis bay la xanuunsan yihiin. xanuun toos maayo, waswaas xalkoodana fi kitaab illah. hadda qur-aan saaran aan sameeyaa markaan turkiga joogo, gurigii dadka ay ugu imaadaan. waxaa igu dambeysay nin dhalinyaro ah, ganacsato ah, qur-aanka min baqara ila naas 2 jeer 3 jeer lagu dhameeyey. markaasuu ii sheekeeyey. marka wuxuu dhahay sheekh xasanow, intaan isbitaal wax raadinayay waxaanan dareemin baan ka dareemay qur-aanka. lacagna kagama bixin, laakiin dawooyinkaygi waxaan ku qiyaasa u dhahay intaan bixiyey isbitaal intaan ku noqnoqonayay $70,000. ama qur-aankii marka la saaray xaalkii markaasuu ogaaday. dhagaxaa ku jiray magaxiisa keliyihiisa ilaahay wuu ka saaray. maamo kale waxaan xasuustaa oo cunug nin iyo gabadh iyo waxa weeyaan nin iyo naagtiisa isla imaadeen. dee qofba wuxuu dhahaa, laakiin nin iyo xaaskiisa ama nin iyo naagtiisa kulli waa soomaalida way kala badan tahay, wararkooda waa iska naag waa macno ma lahmiya taas. naag ma la dhahay sooma qofba markaas ku dhaha naag ha dhihin naag, laakiin xagga waa la dhahaa. ama nin iyo marwadiis ama english maxaa lagu dhahaa? ingiriiska noo ron inta english aada loogu hadlaayo ya husband and wife. nacam, taasaa toosan. oo ay imaadeen marka cunug yar bay haysteen, isbitaal ay u socdeen. cunuga xamara waxaa loogu soo qoray inuu xanuunsan yahay, dawo lahayn, ilaa turki la geeyo. qaliil u baahan yahay, waa 4 bilood oo jira. laakiin muhiimadda maahan kan qur-aanka akrinaayo la socda, waa yaqiinta aabbaha iyo hooyada ay yaqiinsan yihiin. laakiin haddaa dhahdo niyo qur-aankan baroobeyneyna ku caafimaadi mayso. laakiin xaqan yaqiinan gabadha iyo wiilka dhalay iyo waxa weeyaan xaaskiisa waxay go-aansadeen intaan wiilka camaliyada la geynin, beri oo kale camaliyi leeyihiin oo in la qalo waa la feermiyey, waa la diyaariyey. waa ii imaadeen, waxay dhaheen intaan meesha tegin horta ilaahay kitaabkiisa aan qaadano. waxaa laga yaabaa allah jala jalaaluh cunuga inuu noo badbaadiyo, qalinkaasi uu ka baaqdo. انظر اليقين برب العالمين جل جلاله. وإن كان
cunug yariis oo qurux badan waan la murgooday waa la qali doon dhabarka laga qali doon wax yar kadib berito qaliinkiisa sariirta la saari doon arrin fajac bay ila noqotay waan la murgooday quraanka ilaahay aan akhrisanay oo dawadeena ahaa ilaahay noogu tilmaamay shifaa lima fi suduri wa huda wa rahma wixii dhana ilaahay u jamciyey binawaayahum alkhaasa alطayiba niyadooda wanaagsan ilaahay uu ku siiyey quraankan akhrinay cunugii waa la waday isbitaalkii la geeyey hooyadii aabihii ii sheegay ay ku aad u faraxsan tikidii soo jarteen waxay imaadeen Turkiga rafaad intaas cunugaas in la badbaadiyo waa cunugii u horeeyay isbitaalkii marka la geeyey doctorku waxa la faxsi la galiyay waa la baaray si loo ogaado doctorku wuxuu dhahay warqadahan cunugan isma laha warqada waxa ku qoran cunugan qaliinka galayo wax isqabanayo ma ahan cunuga qaliinka loogu talagalay la kaalaya cunugii fiiriya kanaan keenay bixin cunug kalma wado ana ka dhalnay warqadahan magaciisa waa kuwana baasbalkiisa waa kana nag doctorku wuxuu dhahay cunugan waa fiyoya dhibba ma qabo yaa qaaday dhibkaas yaa ka qaaday allah yaa awar cunuga allah quraanka soo dejiyay allah muxuu ku tilmaamay quraanka inuu yahay shifaa bas culays bas saari ayagoo faraxsan bay noqdeen way adeegteen waxa weeye xamar ay ku noqdeen cunugii waa fiican yahay aad iyo aad u wanaagsan yahay nuurun ala nuur طيب هل أنت مكوكل صوت يا ربي قرآنك مكوكل صوت إنه عافماد وياي على حسب يقينك مرك قرآنك عافماد وياي ولا لي مرك وح الله وحان ربنا هدان قرآنك كهلينه ما نقبسنه ما نكبكنه المهنة مرك نكون مشغولين إنه إني برتان زي سكول يو وحان لو بهنين ولا ليال أنت مسكح هذا في يوداي قلوبتooda ay wanaagsan yihiin ay nadiif yihiin computerkooda maskaxdooda ay nadiif tahay oo istiqbaaliye fiican ay leedahay maan ku buuxino nuurkii ilaahay jalla jalaaluhu cunuga 7 jir 8 jir 9 jir 10 jir meelahaas ilaa uu ka gaarayo iskuul waxba kama keeno runta hadii loo sheego iskuul waxba kama keeno iga hay waa eeho wax iga mashquul weey waxna ma qoro waxna ma sameeyo baashaal ciyaar laakiin imisa ka dhumayso لحجر اسكول لوجيا أما تدوجر اسكله إما صار ما يسوي 7 سنة عيارة 7 سنة ده قبضه الجهد كل بحسه معلم كان دقاله أو قلو معلم كان دقاله سي معلم هذا واحد سيني وحويا متصل بالجوي كله بدك اسكوله وحكي سوي أو قليه أما القرآن قرآنه إلهي السماء أيكن وحكحرمي بركة القرآن فرطها لغو برا مصالح بالله قلال لكن معلم كما شركي سكرك كان اسكولك جوغو انتو قادنا قيمين كلام ربي عنق معلم كسن قيمين وبرنا مركا عنق قرآن مركو حفظيه محاكا صور دحبحا مركا قري قاقا بارك الله فيك قري قاقا محاكا صور دحبحا ويلاش إلهي كمد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلهي بلنقات وقالين القرآن كحفظنا في صدور الذين وكحفظي أوتوا العلم عنق قلبي يسمحون لك مركا قلبي ولايا كلام ربي من سورة البقرة إلى سورة الناس يا دلي هذا دلي شرف ما هذا كتكتو الدنيا ده أصلا القرآن كحفظ بريتو ووينانا إن شاء الله تعالى وإحنا وبرنا بمبارك وادي بركوه يستاهل ما اللي بونا أصلا فشي وحو عنا كفكر مايو نروي نفسنا وين مايو لأنه مع كتاب الله إمام وقرا ددو تجينا آلاف مؤلفة أو دت كنت جالس كنت كراي أيوة سويدينا عنق يا دلي هبل على جزاه الله خيرا العنق في عنبو نوصو صاري وكد ذلك المهيس إلهي جنة كورابي وما كان دمتوية الله جنة إله كورابي انت تصدر قوة الدعينيس يا دلي والد كذا قوفاني هذا رضا اتياش هذا قوفاني ومدرنا كجعلانيس وحاسي قف كاسي نور كاس ليمي وجهد بحسي أبو ما جعيش هجداش هنلقوا أمانه
أهل القرآن كتك أبدون كان ilmaha intay daliil yihiin ay tala aysan gaarin ku shub quraanka haddaan idin sheegaa 7 sano ilaa 10 sano fursada ugu qaalisano ubadka soo maraysa waa 11 12 13 iskuulkii farta ha barto iskuulka ha barto hala qabsado dadka baadiyay ka imaadaan ay ko 20 jir ah everkooda ay fadhiyaan koorsi yar bay sameeyaan تعليم نبي يقرأ جهد بيسميان نكلا أسي تجار كورس أو لوصل أو دقدقة يصير قارنا شهادونا لسينا وسي قد بجامعة وسي قلا وسي قد بحويان ماجستير وديارنا وهلم وجرا دكتورة الولاية أو اعتصر وكبل عوي هدو بعدي كيمد وحلو ذلك لو اعتص وحلا بركة روي حتى شيطان كاكو عاونا هنا برتت وعلم آخر معه أما القرآن نوروي مركع شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور كلام الله ونور الله لا يهدى لعاصي نور ويكون قرآنك نور إلهي قف عاصئة والدل بقلا إلهي مسيو عاصم يقولون إيمانا ملك تبنجرة عاصم نقنا مية كوي تبنجرة عاصم نقنا مية قولوا بلا منه شن تبنجرة قالوا عاصي إنه نقضه أما إنه بار النقضه مركزي وحاول حسابتي بلا منه تبنجرة دم بمرة قرآن كو أفضل ديها كلية وحقوقها هي أبو ناقصم القرآن كجعل سيستم أدجينايو معلن كان قنعينايو معلنا laga sheegay mid gurigi ilmihiisa wuxuu geeyay madraso quraankii cunugii wax isku toosan mahayo aayadu suuradu weydiiyay aayadu bootina aayad kale oo si akhna way qasan tahay macalinkii uu geeyay wuxuu dhahay macallin cunugan oo ujeedaa quraankii akhri maqashiyo cunugii gaf aayadu ka tagaayo barana markaas oo dhahay maxaa uu gashay مدي آيات كامل مبارك رودا هذيك بالعادة كامل مو بحنيست لقاليه بيش ما بحنيست ما كسرك برا ودا أنا مسكينة هنقول وبيا وباهنا هاي حافظ بحس حافظ برا ودا أنا لكن هذا فل بحس القرآن فل برا وحقيقة عادة لا صعدة ما قرأته مركب معنا كم حاول بيه مركب إنه السنة عاسس إنه قد دل بسيطة أما عونه قالوا وحويان وماشي كره هذا محاضي وما لنا قالين وحلا مسيناي معلمين تقارن المها قرآن وما بالمليان بأصلا بوا ولا حيرة ومركز تملا هو العلنا تجوا جزء عمه أرض اللي هاي سنة كذا هاي معلم ها هو مر يا سورة الإنسان هل سورة قدرية لا بس سورة قدرية كلية مرسلات الإنسان معلم هاي هذا 6 سنة 4 سنة لا جزء 6 جزء ما ضعفوا marka macallimiinta kamid ah artay wuxuu sameeyay macallimiintu waa wareystay waxwaash waa la socdaa laakiin dhibaatadu macallimiinta ma ahan bulshada waa macallina safara soo galay meel uu socday macallin kala yimi wuxuu dhahay macallin madrasadan si joog 10 bari meelaha samaqnaan doona waana soo noqon insha Allah ta'ala ilmahan quraanka u dhameeyeen la socday dhameeyeen way ka baxayaan madrasada meeshooda leh bas ahla 10 la kood caliilaha ka imaanay wax ziyadaha iga siini waayo dhaqaalo ku raadsanaa haday dhameeyaan macallinkii wax garanay ma laha laakiin dadkii wanaagsanaa quraanka jeclaa macallimiinta markay quraanka ilmaha u dhameeyaan ay quraanka ay baraan mar waliba cunuga waxa la amraa inuu macallinkiisa ka warqabo hadduu ganacsi iyo wax helo inuu macallinkiisa wax weeyaan mar waliba uu hanti siiyo ka warqabo quraanka dadka qiimeynayo marka bulshadii markay noqotay kuwa oo quraan aan jeclayn dadku waxay ku kalaftay marka dadkii macallimiintii quraanka dadka baray in waxay noqdaan dad oo waxa weeyaan daacad u ahaan dadkooda ay kana sheedaara marka ku caawinay laakiin adaa garab laga helay adaan quraanka jeclayn laakiin quraanka ma jeceshahay معلنك raashin fiican nolol fiican si ahlu quraan Soomaa si horta intuu san cunuga wax barin ha u duceeyo horta cunuga markuu aad ku farxo cunuga ma sha Allah aba fiican baa dhalay xaqiisa ma siisay adna uu ku siinaa macalinka
macallimiintii hore dugsiga markay imaadaan guriga la siin jiray waa loo guurin jiray waa la qabsan jiray waa haluma wajara waa la qiimeyn jiray quraanka ma qiimeynayno jeelka hadda soo baxay kalaam rabbi lama rabo marka qofkan quraanka rabin baraka ka maqan nolol macana ka maqan hal qisam ku soo kooba insha Allah ta'ala qisadan ku soo kooba waxay tahay hablaha quraanka la baro dumarka quraanka la baro waayo ayaka khatarta badan ay ku dhacaysaa shayaadiinta iyo jinka sixirka isha waxay u fududahay inay qabato waxa weeyaan dumarka iyo caruurta maadaama ay yihiin naaqisaatu caqlin wa diin halagu dadaal marka halaga kantaroolo inay garanayso asaasiyaadka markay u yartahay سورة آية الكرسي آمن الرسول لا يكلف الله قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس انتاسي قبل يقرنيس القرآن بيقرنيسها وايو آية الكرسي وارديها نرش عدوي عاو هذا أخرسه إلا واو كبريو ملائكة كواردينيس أمانة كجرتا واو بري هذا أخرسه إلا قرح يكرد عدو أمانة كجرتا آية الكرسي كده كمان له يلصق حداد أخرس الدبر كل صلاة صلاة كستوت كتو قداشة حداد أخرس آية الكرسي ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت ولا النبي عليه الصلاة والسلام قفك آية الكرسي صلاة كستمر كتو أخريه جنة قلتان كذا كلية وحاول حية كلية إنه أدنتو مرة حدث أدنتو من أهل الجنة نبينا بشاري عليه الصلاة والسلام وآية كلية كهدوية أعظم آية في كتاب الله إنك واردين يسوع الشيطان كوسو دوانين وحاشا يا سوري يا شيكر يا شيطان الشيطان سوري حديث كاس شيطان وحوش هذه آية كوسو الآخرية مالو آخرية كوسو دوان كرو أيوه يوشي أبا هريرة نبي أبا هريرة أوشي نبي الإله وصل شيء سبحانه وتعالى إذا أنتم أن آية الكرسي مركب أورتا لقى صح الله برا قصة مركب دام صوك هو قولي كويا لي تركيا درس كيجا أيام قبتي الله بقيب بها قيب قرء قيب خاص والإيه يقولي ينتبه دبدبي على كياني قولي دتكي ولا قحي هبينكي وحي سحيان هوتيل gurigiyaan galay quraanaan ku akhriyay marka dadkii hotelka markay tageen gurigii sababtu u gubanayna waxa weeyaan gabar gabdhaha kamid ah ayaa kursi haday ku fadhiisato ka kacdo uu gubanaa sareeray ku fadhiisana uu gubanaa de wax la iga sheekeeymaan shaahatu bi'ayni gurigii saddex bariyan quraan ku akhriyay xaalku yara degay markay guriga ka baxeen hotel ay tageen hotelkii ayaa gubtay hadana meel ay ku fadhiistay markay istaagtay hotelkii ayaa dabka gaaray warcilada anaka waayo guriga ma ahana celiya guriga loo soo noqday rafaad iyo walbahaar iyo waswaas waxay galeen ilaahay waxa og yahay quraankiin saaray saddex isho suurat al-baqara ku akhrinay xaalku iska yara degay laakiin dabkii wuu socdaa wuu soo noqonaa marba intaan quraanka wadno way ficnaa ma quraanka markaan dhaafno wuu bilowday ilbihii guriga joogay markaan weydiiyay qof quraanka dhameeyay kuma jiro quraankii hooyadii aabaha ihtimaam ma siinaynin quraanka markay u baahdeen quraankii ayagoo tobaneeyo ah in qof banaanka ka imaaday dawo la imaado dawadii uu la noqonayo noqotay gabadhi akhiran waxaan ku yiri guriga la igu keeno saddex ishan suurat al-baqara ku akhriyay waan weydiiyay marka gabadhi waxaan ku yiri quraanka ma garanaysaa maya آية الكرسي ما قرنا سمية آمن الرسول لا يكلف الله أشياء قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق وآخر السي لكن نفافاتي وحن لو بعضنا يمشي كشفت وحن كوري علد عليك وجرتاي آية الكرسي كبرها ما أنت صورة آية الكرسي صور حفظي بريان كاسوها ولا كذا الله سعودي ما أنت لبعض آمن الرسول لا يكلف الله وتكبح حساب ما أنت سدحات قل هو الله أقول رب الفرق وتكبح حساب ما أنت القرآن كون قوة سدن قصعني وين لميسي
gurigeeday u noqotay waxaan ku iri marka waa inaa akhrisataa is ilaali isku ilaali qur-aanka sida waxa weeyaan bahalkan fiishka markuu ku dhex jiro biyaha wuu noolyahay sooma marka laga soo saaran wuu dhimanaa mu'minkina saas weeye qur-aanka noloshaada waaye waa inaa yowmiyan wax ka qaadataa haba yaraatee habeenkii ku seexataa haba yaraatee khaasatan aayat kursi wa aamana rasuulu laa yukallifu allah dhibkii maalintaas ugu dambeeyey ilaahay fadligiis jala jalaaluhu markay ruqye is saartay ayay ka badbaaday marka maxaa taas ka dareemi kartaa in qur-aanka lagu saaro way fiican tahay laakiin maxaa ka fiican inaa isa saarta adiga adoon qur-aan garanayo oo qof qur-aan saar aada haddii lagu arko maxaa xaalkaada wuxuu la mid yahay adoo doctor kuu qoray dawadii qaadatay lagu dhahay subaxdii 3 kaniin cab duhurkii cab qadadii cashadii cab dhahayo maya taxi aan qaadana maxaa jiro doctorka uu tagaa hay salaam alaykum doctor hay maxaa u imaatay dawadii rabaa agtaada ku cabo intan ku cabo ifiiri bismillah galaas biyo qaadana 3 kaniin guriga ku cabo karay ayuu la imaanaa meesha uu noqon hadan duhurkii hadan baawur soo raaca doctorku u imaano wuxuu leeyahay agtaada inaan ku cabaan rabaa maxaan dabaalmo Soomaan adoo dawadaada haysto dawo meel kale ka raadini quraanka akhriso laylan wa naharan biidhni illah hanuunad ka helaysa caafimaadad ka helaysa ma garatay guriga maskaakiinta dadka oo xirta ah ama dadka iska dhibaataysan ahlu quraanka u yir azuuma u samee kow hal mar ku dhameeyay quraanka guriga qada fiican si saabun gadkooda wanaaji qurxi waa iska ahlu quraani ilaahay baa quraankiisa ku xifdistay dad culus dad waaweyn dad culus way dad sahlan ma ahane ka ducayso guriga ha u duceeyana ku barakoobo saasa la sameyn jiray waayii hore hadda laakiin way yaraatay hadda waxa kale la sii bilaabay quraan in online isku saaro sheekada isii bedeshay saasa weey insha Allah ta'ala quraankan qabsano nuuru hayatina fi dunya wal aakhirah assalamu alaykum wa rahmatullah